marka la isku geeyo lacagta ay sameeyeen 10 nin oo kaliya intii lagu guda jiray cudurka safmarka ee coronavirus waxay gaaraysaa 540 bilyan oo dollar waa ku dhawaad 400 oo bilyan oo euro sida ay baaritaan ku ogaatay hay'adda samafalka Oxfam. haddaba maanta barnaamijkeena xogdoon waxaan kugula wadaagi doonaa 10 nin oo helay intii lagu guda jiray cudurka safmarka ee coronavirus lacag talaalka cudurka coronavirus loogu iibin karo dhammaan dadka ku nool caalamka. haddaba intaanan muuqaalka gudagelin waxaan kaa codsanayaa inaad videoga like dhahdid si uu bulsho badan u gaaro, sidoo kale inaad nagu soo biirtid ayaduna dhiirigelin ayay noo tahay. ku soo dhawow barnaamijka oo faahfaahsan. hantidani waxay ku filan tahay in qof walba oo caalamka ku nool laga badbaadiyo inuu sabool ku noqdo cudurka coronavirus awgiis, waxaana dhammaan dadka adduunka ku nool loogu iibin karaa talaalka viruska sida ay ku warantahay hay'addu. warbixintan ay soo saartay Oxfam ee ku aadan isku darka lacagaha ay bilyaneeradan heleen waxay la eg tahay ay yiraahdeen dhammaan marka la isku geeyo dhammaan qarashka ay dalalka barwaaqo sooranka ee loo yaqaan G20 u adeegsadeen ka soo kabashada khasaaraha ka dhasha viruska. hay'adan samafalka ah ayaa ku boorisay dawladaha inay canshuur ku kordhiyaan dadka maalqabeennada ah ee hantida aadka u badan haysta. warbixintan oo magaceeda laga dhigay viruska aan dadka cadaaladda u sameyn waxaa la daabacay xilli ay hogaamiyaasha caalamka ka shirayeen soo noolaynta dhaqaale burburkii uu sababay coronavirus. tallaabadii aan la qorshaynin ee dawladuhu ay ku xoojinayaan dhaqaalahooda ayaa sare u qaaday saamiyada suuqyada, taasoo dhanka kale cirka ku shareertay hantida soo gasha bilyaneerada, halka dhinaca kale dhaqaalaha caalamka uu la lumay oo hoos u dhicii ugu weyna uu la kulmay muddo hal qarni ku siman. marka la eego guud ahaan caalamka, bilyaneeradu waxay heleen 3.9 trilyan oo dheeraad ah intii u dhaxaysay 18 bishii Maaj ee sanadkii 2020 ilaa 31 Diseembar ee isla sanadkaas. haddana waxay sii maraysaa 11.5 trilyan, taasoo la eg qarashka ay dawladaha G20 ku bixiyeen wax ka qabashada cudurka safmarka ee coronavirus. sida lagu sheegay warbixintan, 10 nin ee ugu taajirsan adduunka oo hantidoodu ay ku darsantay 540 bilyan oo dollar tan iyo bishii Maaj 2020. raggaas waxaa ku jira milkiilaha Amazon Jeff Bezos, waxaa kaloo ku jira milkiilaha Tesla Elon Musk, si lamid ah waxaa ku jira milkiilaha shirkadda Facebook Mark Zuckerberg. warbixintu waxay sheegtay in Mr. Bezos uu lacag badan helay ilaa intii laga gaaray bishii September ee sanadkiina dhaafay ee 2020. lacagtaas oo xitaa uu uga farxin karay dhammaan shaqaalaha shirkadiisa Amazon oo tiradoodu ay ku dhowdahay nus milyuunka ruux, qof walbana ay ku soo aani lahayd 105,000 oo dollar, walina hantidiisu ay la ekaan lahayd intii ay ahayd cudurka safmarka ee coronavirus ka hor. haddii ninkan la barbardhigo dadka ugu faqiirsan caalamka, iyagu waxay ku qaadan kartaa inay cudurkan ka soo kabsadaan muddo 10 sano ah. hay'adda Oxfam waxay qiyaastay in 500 oo milyan oo ruux oo dheeraad ah ay sabool ku noqdeen cudurka safmarka ah, taasoo dib u celisay hoos u dhicii saboolnimada caalamka ee la arkay 20 sano ee la soo dhaafay. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. fadlan waxaan kaa codsanayaa haddii uu ku cajabiyey inaad videoga like dhahdid, sidoo kale inaad soo booqatid channelkeena xogdoon oo aad subscribe dhahdid, ayaduna waxay noo tahay dhiirigelin iyo dardar cusub. waad ku mahadsan tahay mar kale daawashada muuqaalka.